kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka raadraaca telefishinka qaranka Soomaaliyeed qodobada caawa barnaamijkan idinkugu heelana waxa ay kala yihiin golaha murtida iyo wacyigelinta tiyaatarka qaranka waxaa ka socota hawl aad u ballaaran kaas oo lagu dhisayo barnaamijka xilqaan hadda shaqada ka socoto waa sidee maxaa iska bedelay 12 maalmood kadib dib u dhiska ka socda tiyaatarka qaranku ay ka qayb qaadanayaan dawladda federaalka Soomaaliya shaqaalaha rayidka ah barnaamijka ayaan idinkugu haynaa shaqada inta badan ee dalka taalo waxa inta badan ardayda ka soo baxaya jaamacadaha ama ardayda dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ugu badan ee shaqooyinkoodu ay ku waayaan waxa kamid ah barashada luqadda Ingiriiska oo aan aad ugu liito dhinaca waxbarashadooda ee luqadaasi sidee loo heli karaa arday Soomaaliyeed oo luqadaasi si sax ah u bartay barnaamijka ayaan idinkugu heynaa macad laga furay maanta magaalada Muqdisho oo muddo 3 sano ah jiraan ilaa macadkaasi iyo waxyaabaha uu ka bedelay muddo 3 sano kadib oo kaas oo ay hirgelisay jaamacadda Simad ayaan barnaamijka idinkugu heynaa aniga waa Cabdirashiid Nuur Ibraahim kulanti wanaagsan daawadayaal waxaad nagala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed iminka waxaa si toos ah nooga daawanaysaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed sidoo kale baraha uu ku leeyahay bulshada sida Facebook-ga iyo YouTube-ka iyo Instagram-ka magaalada Muqdisho gaar ahaan golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka Soomaaliyeed ee tiyaatarka waxaa ka socota hawl aad u ballaaran muddo 12 maalmood kadib madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu ku dhawaaqay barnaamijka xilqaan in halkaasi lagu dhiso 12 wasaaradood oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shaqaalahooda ka qayb qaatay dhismaha golahaasi murtida iyo wacyigelinta tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed bal tiyaatarka haatan shaqada ka socoto waa sidee maxaa muuqaal ahaan iska bedelay xilliga shaqadaasi ay bilaabanaysay iyo shaqada xilligii sida uu haatan uu ku socdo waxaa marti noogu ah barnaamijka caawa aan soo gogol fadhiisinay Maryan Aadan Amiin agaasimaha arrimaha bulshada iyo xiriirka dadweynaha ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka ahna isku duwaha barnaamijkan isxilqaan sidoo kale waxaa marti noo ah waasna barnaamijkan qayb muhiim ah ka qaadanaya controlka shaqaalaha dawladda qaabka ay uga qayb qaadanayaan Ismaaciil Macalin Cabdullaahi agaasimaha tababarkii horumarinta shaqaalaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dawladda Soomaaliya marka hore ku soo dhawaado barnaamijka raadraac waxaan ku hormarayaa agaasima Maryan bal nooga sheekay marka hore barnaamijka isxilqaan sida shaqada shaqaalaha dawladda ay uga qayb qaateen iyo sida uu ku bilowday بسم الله الرحمن الرحيم ومهتمتا عبد الرشيد يبهذا SNTV برنامج إسحاقان وبرنامج وكل واقع مدحوينها جمهورية الصومالية محمد عبد الله فرماجو وحكى لنا ما هو برنامج ذاتك لبرايو إني وحق صناه ونجري جري ونجري دوناه وانا إيشاك إن هوش ودن كتاب qof aan ka sugeyn oo noo qabanaysa aysan jirin oo aan anagu qabsano barnaamijkaas waxa ay sheeg ku dhawaaqay madaxweynaha maadaama ka gaadho toddobaad kadib waxaa la dhagax dhigay tiyaatarka qaranka iyo istaadiyo Muqdisho oo asna burbur weyn soo gaaray muddadii aan colaado badan ku jirnay iyo burburka labadooda way isgarab socdaan dhismahoodii anaga waxaan joognaa aniga walaalkay Ismaaciil tiyaatarka qaranka ونحن نسدوه كها أسرنا لنعا وهوشة كوضع لنعا إن شغالها ريدك أو كغيب قادنا عيو مركي مدحوينها لقح لقى 16 أكتوبر بشي أنصاد عرفني تدبات كدب تدبات بحنو قادتي إنتان كلا هذين إن ديار سنين قلب كيد اسمها إيو أنا لحي الحريري نجا نحصت إيو تدبات كدب وحاري سجارها كصوب بعد حفيز كيسة ولا ذكريتها lagu amrayo shaqaalaha dawladda iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda in ay ka qayb qaataan barnaamijka isxilqaan waxna ka dhisaan wadanka meelihii burburka soo gaaray hay'adaha dawladda ama dadka lagu wacyigeliyo ama isbitaalaha aadaan ama iskuulaha aadaan ama maktabadaha aadaan adiga dhismo walbo dawlad oo u baahanahay maanta
waxaa bilaabatay oo dhismihii la bilaabay tiyaatarka qaranka maanta wuxuu socdaa muddo 12 maalmood ayaasma 12 maalmood kadib bal maxaa muuqan kara waa mahadsantahay marka hore salaamaya TV qaranka iyo Cabdirashiid ku mahadsantahay barnaamij muhiim waaye oo dadweynaha loo bandhigo ama daawadan aad muhiim u ah tiyaatarka qaranka maalintii aan shaqada bilaabay 22 Oktoobar ayay ahayd markii laga soo tago dhagax dhigii iyo dikreetadii madaxweynaha ee agaasin marin ay sheegtay maalintii 22 ilaa maalinka maanta waxaa shaqeeya 12 wasaarad maalintii ugu horeysay oo dhagax dhiga aan gudaha u galnay oo kormeerka la sameynayay tiyaatarka gudihiisa in la galo xataa waxay ahaaday aad u dhibadneed runtii waxaa yaalay qashin aad u fara badan oo 30 sanadood lagu guraayay oo marna laga xaaqin waxaa deganaa dad maxaan ku raahdaa iska danyara waxaa deganaa ciidan deganaa waxay ahayd meel runtii aan la daawo karin sida ay tahay laakiin maanta waxay u eg tahay meel shaqo laga qaban karo kadib markii shaqaalaha Soomaaliyeed ee sharafta leh ayuu ka jawaabayeen wareegtadii ra'iisul wasaare Khayre iyo schedule-ka ay sameysay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayagoo ku howlgalaya runtii waxay muujiyeen karti iyo hufnaan iyo waxay muujiyeen wadaniyad ayay muujiyeen waana wasaaradii 12 maanta shaqaysay aad u wanaagsan tahay maanta shaqadu shaqaalaha dawladdu way ka qayb qaataan shaqada bal marka isku dawihii hawshan ayaa tahay golaha murtida iyo madadaalada qarankana waa muhiim halka wacyigelinta door muuqda ka qaadanaysa bal sidee u nidaamsan shaqadu markii ay shaqaalaha ka qayb qaadanayaan waa arrintii waa su'aal fiican waxa jooga horta shaqaalaha dawladda kaliya ma aha waxa jooga injineero kambaniga dhisaayo injineero iyo waxa jooga shaqaale kale oo injineerada group ku ah waxay dhisaan ayaga dhismaha shaqaalaha dawladana wuxuu qabtaa wixii howl gacmeed ah haddii shamiito la qasoo loo dhiibayo haddii bulkeeti loo dhiibayo haddii meel gudaafataa laga guraayo arrimahaas macnaha u baahan howl xoogeeda ay noo qabtaan inkastoo ay jiraan wasaaradaha qaar oo injineero noo keenay wayna ku mahadsan yihiin oo wasaaradda shalay ka mid tahay ganacsiga 4 injineer ay noo keeneen oo dhismaha wax ka dhisayay aad iyo aad waa arrin in lagu daydo mudan marka waxaa jira wasaarado kala duwan ayagana agab iyo shaqaalihii isku soo daro wasaarado kaligood iska yimaado way jiraan waa wax hadda ku dayasho mudan oo heerba heer wasaarad isleedahay ay kaa badinin waana tartan ka bilowday bulshada Soomaaliya oo qalbiga ka fiicneed laakiin ku dhiiran weyse inay dhisato dhismayaasheeda duwan waana wax aad iyo aad loogu farxo inaa ilaahayna soo joojiyo meeshii aan arkayna in ayadoo la fuqsanayo shalay maanta ayadoo la dhisayo aan aragno اسمه shaqaalaha qayb ka mid ah wasaaradda shaqada arrimaha bulshada dawladda arrintan waxay saaran bal qaabka marka la nidaaminayo shaqaalaha ma idinka soo xushaan mise sidee ula xiriirtaan hay'adaha kala dawladda qaab noocee ah ayaa tira cajimin ma jirto oo loogu talagalay inay imaadaan wasaaradda waa maasantahay su'aashaas waxa waaye schedule-ka la sameeyay ama shaxda la sameeyay loo diray wasaaradaha oo dhan ama hay'adaha dawladda taas ayagoo ka jawaabaya waxay mar walba noo soo diraan maalin kasta noo soo diraan liiska shaqaalaha uga qayb galaya tartankaas marka liiskaas ayaan ku xaadirinaa marka ay shaqada soo galaan waxaa muhiim ah inaan sheegno shaqaaluhu markay shaqada soo galaan kulli horta waa la baaraa ay dhikaaradooda lagu baaraa sidaasay kusoo galaan tiyaatarka gudihiisa gudaha markay soo galaan haddana wacyigelin ku samaynaa aniga abaayo hor istaagnaa waxaan u sheegnaa inay tahay hawshaanu shaqo oo shaqo wadareed ah oo loo baahan yahay oo ay tahay in waddankaaga dib aad u dhisato gurigaaga sidaad uga shaqaynaysa si ka fiican inaad uga shaqayso ay tahay maadaama ay tahay shaqo wadareed laba waxaan u sheegnaa unit jaamacadda ummadda ka socda ay nagu deeqeen oo dawo noo keeno oo kalkaaliyaal caafimaad noo soo diray in ay u raadsadaan markii dhaawac uu gaaro oo shaqada wax dhaawac ka soo gaara waxaan u sheegnaa marka hore inay ilaashadaan horta gacmahooda iyo lugahooda ilaashadaan si aan dhaawac ugu soo gaarin meesha waxaan u sheegnaa in qalabku meesha uu yaallo oo lagu shaqaynayo gaari gacanada xaaqimada badiilada baaldiyaasha waxaas inay meesha ay ka qaadaan ay ku soo celiyaan waxaan ka bacdi geynaa goobta shaqada meesha ka howlgalayaan ilaa ay shaqada ka dhameeyaan waa dul taagana taasna aad muhiim u tahay maxaa jira
dariiq loo marayay in hawshaas ay qabsoonto maalintaas ayaa sidaas ah waxaan kala u mahadcelinaynaa oo aanan ilaabi karin shaqaalaha qaar markay shaqada soo galayaan waxay wataan boorarkooda waxaana hor socda wasiiradooda waa arrin muhiim ah waa arrin dhiirigelin u samaynaysa shaqaalaha hay-adaha fursadaas ka faaidaysanaya maryan agaasime bal marka la fiiriyo shaqada inta socotay caqabado ma jiraan oo shaqaalaha kala kulanteen wallaahi ma badna caqabadaha lagala kulmo shaqaalaha shaqaaluhu waxay u egyihiin dad daah madow saarnaay oo laga wareejiyey waana dareemi kartiin bahdiina saxaafadda maalin kasto waxaa noo yimaada shaqaalaha marka laga reebo guruubo dhalinyaro jaamacadaha ka socdo haween isxilqaamoo socdo hay-ado kaloo dowladeed oo hadda aan weli la gaarinba jadwalkoodii oo dhahay anaga goormaan leenahay u rabo inay u diyaargaro maxaana loogu baahan yahay maxaan sameynaa maxaan keennaa waa arrin idadiilo mudan oo in lagu farxo ay waajib tahay shaqaalaha caqabado badan kalama kulano waa dad diyaar u ah waqtiga shaqada ay qabanayaan kuwa qaara waxay ku leeyihin waa joogaynaa ilaa iyo casarkii oon ka kari la-anahay hawsha waa dhamaatee qaybtiiniye ordaha marka hala hoydo marka waa wax aada lagu farxo saacadaha idin degsan meeqa waayo annaga waxaa noo degsan subaxii 8 labada saac oo subaxnimo ilaa iyo shaqaalaha caadiga kowda shaqaalaha wasaaradaha iyo hay-adaha dowladooda hadday yihiin guddiyada madaxa banaan hadday yihiin hay-adaha kale oo qaranka jadwalka kale oo bulshada rayidka ay kasoo qeybgeli doonto waa la sameynaa ayadana wasaaradda arrimaha gudaha iyo aan la kaashanaynaa ayagana jadwalaa loo sameynaa iyagoo rabaan weliba inay la howlgalaan wasaaradihii oo laysku daro qayb bulsho rayida ama urur ha ahaado ama jaamacad ha ahaato ama iskuul ha ahaado iyo wasaarad annagana waxaan leenahay marka u horeyso hay-adaha dowladda lagu daahfuraye ayagu ha dhameeyaan muddada u qorano 27-26 walaalka ismaaciil aada iga yaqaano marka markay dhammaato inaan ayagana jadwalka soo gelino laakiin tiyaatarka qaranka iyo goobihii dowladda ay deganaan jirtoo dhan iyo wixii aan isla lahayn annaga wax badan aan isla leenahay laakiin naga qarsoono aana ogeyn deegaamada aan isla lahayn soomaali haddaan nahay wax badan ay noogu baahan yihiin maskaxay noogu baahan yihiin xoogay noogu baahan yihiin xoolay noogu baahan yihiin haddaan saddexdaas isku darsano calooshana isu furno meel walbaan dhisan karnaa aboorkuba dudmada aragtu dhistaa marmar dhagax yaroo meel ka sare iyo bir yaro waxaa la qaadaa meesha shaqaalaha qaara galoofsadii adkaay wato oon loo dhawaa karno waxooda soo diyaarsado qaar waxay iska wataan waa iska sacabooley marka wax way imaanayaan laakiin waxaa noo joogo maalin walba jaamacadda ummadda mahadiha ka gaadhee waxay noo soo dirtaa 2 wiil iyo gabar caafimaadka bartay qalabkooda u sameysanay tuulkooda daawadooday wataan wixii yaroo sharooteen iyo u baahan meel yar wax ka gaaro ayagaa naga caawiya wayna mahadsan yihiin jaamacadda ummadda iyo tiinkeeda ismaaciil guddiga shaqaalaha kugu helaya haddaanan khaldanayn tirkoobka shaqaalaha iyo liiskii shaqaalihii gembiyo kale iyo bal ma jiraan hab loo qiimeeyo ama ganaaxyo ka dhalan karo oo adiga guddigii iyo oo wax cad meesha lagu ogeeyo wasaaradda shaqada iyo guddiga shaqaalaha run ahaantii waxaa jira guddi oo magacaabay wasiirka shaqada ee arrimaha bulshada guddigaasaan marka aan iyo anigaa wada shaqayn leh fiican aniga marka joogtaan u joogaa halkan oo waxaan shaqadeeda dhanba usoo daayay halkan inaan ka shaqeeyo laakiin guddigana kormeera noogu yimaada laftirkooda way la shaqeeyaan waxaan marka aan kuugu soo celinayaa shaqaalaha liiskooda noo soo gudbiyaan wasaaradda berita howlgalaysa oo kale caaway noo soo gudbisaa marka noo soo gudbiso liiskaasna haysanaa berita waan ku xaadirnaa shaqaalaha maqan marka anaga ribood gaara ayaan ka samaynaa marka maadaama ay tartan tahay oo wasaaradihii tartamayaan liisaskoodiina aan hayno ay soo gudbiyeen shaqaalihii garbiyey oo aan shaqada imaaninoo soo gelin iyo kuwa yimaada anaga waa naqaanaa marka kama hordhacayno waxaan rabnaa waqtigeeda inaan soo bandhigno oo ay noqoto barnaamij oo warbaahinta aan la wadaagno mustaqbalka oo ribood fiican aan kasoo saarno riboodkaas marka ma ku cadayn doontaan wasaaraddii ugu shaqada wanaagsanayd si doorkeeda loogu cadeeyo shaqaalayaasha qaarkood xataa rasmihii shaqada iyo tababarkii horumarinta tahay shaqaalaha dhiirigelin shaqaalaha qaarkood isku shaqo maaha qaar baa shaqada si wanaagsan ula falagalayo kale waxaan jecelnahay haddii ilahay idmo shaqadana markay naga dhamaato waxaan jecelnahay inaan soo saarno abaalmarino dad aan siino oo shaqaalaha kasoo dhexbaxa oo howlkarnimo dheeraad aan muujiyey
wasiirada laftirkooda kormeerka noogu yimid shaqaalahooda hor socda ilaa hadda intaan ognahay ra-iisul wasaare ku-xigeenkaan soo booqday waxaan soo booqday wasiirka shaqada waxaan soo booqday wasiirka maaliyadda kuwaas kormeer joogtaa nagu haya laakiin wasiirada hor socday ama wasiir ku-xigeenada ama agaasimayaasha guud shaqaalada hor socday iyo kuwa aysan la soconin farqiga u dhexeeya dabcan marka annaga liiskaan haysanaa kuwa hor socday kuwa aan hor soconin laftirkooda report gaar aynoo aanu haynaa kuwa shaqaalaha ay noo soo gudbiyeen kuwa shaqaalaha ay noo soo gudbiyeen goobta shaqada aysan imaana waxaan u haynaa shaqaalihii u yimiday iyo kuwa aan u imaanin marka waxaan rabnaa reportkaas inuu mustaqbalka aan soo saarno oo dad shaqaalahooda ka mid ah ayaga aysan ogeyn abaalmarin aan guddoonsiino maalinta oo diinahay waayahay barnaamijka ku guda jirnaa weli waxaan rabnaa inaan ogaano inta hawshaan socotay bal maxaan ku cajib geliyey ama muuqaal ahaan ku bidaamay dhanka marka la fiiriyo wadaniyada shaqada siday u socoto agaasimeeya xafiiska ra-iisul wasaaraha ka socoto arrimihii bulshada hadan shaqadan waa shaqo aada u wanaagsan oo bulshada ay ka qayb qaadanayso waa mahadsan tahay cabdishiid waxay cajib geliyey waana filaayay waxaad filan ma dhihaysid waa cajib geliyey waxaan filaayay hawl walba horta marka la bilaabayo maxaa caqabado kaaga imaan karo sidee ku dhammaan kartaa maxaa guusheeda sidee loo gaari karaa waa isleedahay laakiin waxay cajib geliyeen markaan hawshaan guda galnay kulli waxay noo noqotay positive wax walba khayr hadday shaqaalaha yihiin rayidka ah hadday yihiin dadka asxaabta ila shaqeynaya hadday yihiin qolada caafimaad ka shaqeynaysa hadday yihiin shaqaalihii naftirkooda loo soo idmaday inay injineerada meesha ka shaqeeyaan hadday yihiin dadka kale ee nasoo booqdo ee naftirkooda maskax ahaan noo dhiso mooraalka waxaan aragnay wax aan la filin oo laisdhehayn waa lagu dhiiri karaa sanadada laakiin lagu dhiiri karo hadda oo wax badan la qaban karo aan aragnay waxaa igu soo dhacay oo kale in wax walba aan samaysan karno dad adag aan nahay dad qabla aan nahay dad dhiifoon aan nahay dad wax isu quura aan nahay maxaa yeele waxaa arkaysaa cunug yar oo sidee jirab ku imaanay ee iskoola ka imiday marka qayb galaa ee isxilqaan boorsidiisu wataa dharkiisu wataa eed iskoola ka imida ma geli karaa gabar yaraa shala arkay waxay tiri eeda ma geli karaa wasaarada iskala hayay ku dardarayna dadkan durdurinayo waa kutuwa kaala aniga la fadhiis waa ka kariwa eedu waa qaadaa dhagaxa ilaa aan sii daayo dhagaxeeda dhex gasho marka waa wax aan la filayn in dhallaanka cunuga yar yara sideed jirka iyo qofka weyne waayeelka waxaa jira abwaano soomaaliyeed oo hadda badanaa waayeel noqdeen oo tiyaatarka noogu imaadaan subax kastoo ku agtaagin maxaan qabanaa hawl tookadiina lasoo gaara jooga cid aka kari karta male dadku marka waxay la-aayeen wax farta u fiiqo waana helnay madax nadiifa oo farta noogu fiiqda meelihii boogaha aan kulen wayna ku mahadsan yihiin madaxweynaha eedasaara waxaa laga bara karaa in aan xusuusan karno inaan waxayna dhisan karno iyo isku tashi wax badan nooguma kacaayo ganacsatadeenaana caawinayso bulukeetigina siinayso ayadaa sidoo kale sibirkina siinayso shaqaaliyaa naftirkiisa wixii uu ku shaqey jira wax ka yar na ogol inuu wax noogu qabtay injineerada waaweynaa oo gurigii aqalka dhisaaye dhalinyaradeenyaa diyaar laha inay xoogooda bixiyaan iyo xoolahooda midda kale aboohey aan ka dhexgalay wasaaradaha isku leebel ma ah wasaaradna waa highclass wasaaradna kisto tababaray qaadanaysaa doorka dambe imaan doontaa iyadoo heersaraa wasaaradaha qaaraan moodaa inay injineero ku jiraan qalabkooda soo gashanayo dabaqa koraayo ka degayo maantoo dhan shaqeynayo qaarna waxay isleeyihin maxaa meesha laga rabo kistoo waxaa ku jiro inay wax bartaan aa u dhiman annaga waa kala qiimeynaynaa meesha ismaaciil wuxuu u joogo warbixintiisa inuu maalin walba diyaarsado anna waxaa u joogaa inaa injineerada la shaqeeyo shaqaalaha la shaqeeyo agabka la shaqeeyo meesha laga keenayo qolada laga dalbaayo logisticada iyo maaliyadda la shaqeeyo haddana shaqaalihii ilgooniya kula shaqeeyo intaba wax caqabada oon ka dareena ma jirto oon wada shaqeynay wanaag ahayn waka ismaaciil 12 beri kadib maxaa kuu muuqanayo oo laga baran karaa dhinaca soomaalida iyo qabka iyo horumarada dhinacaada oo caawa dadka daawadayaasha oo guud ahaan dunida laga daawanayo qaarkood waxaa ku jiro dad isku tashi ku salisa xarumaha dowladda oo caawa waxa aan ka sheekeynayna xataa aada u qiireynaya wax ka socda dalka waa mahadsantaa waa su-aal fiican waxaa laga baran karaa kow marka ugu horeysa inaan wax qabsan karno dadkan dad wax qabsan kara inay yihiin oo ay meesha ka baxayso dadka waxba qabsan karaan iyo waxay la isku akri jira
waxaa ku jira dadka shaqeynaya dad wax kusoo bartay lacag la-aan dalkan dad mushaariya waayo kulligood oo mushaar qaata dad waa ku jiraan mid mid markay shaqada soo galayaan maxaan qabanaa iyo su-aalo ku weydiinaya aad u fara badanoo dareenkooda weli uusan gaarin in maxaa ku ihahdaa wacyiga loo baahnaa laakiin marka ay shaqada gudaha u galaan waxaad arkaysaa inaysan daalaynba oy shaqada rabaan oo sida hadda agaasimaha uu sheegayay inaysan kaa tegaynin ay xataa fasax kaa qaadanayn shaqada waa laga dhuntaa xafiisyada marka la joogo fasaxii beenaha la galaa mararka qaar waa la ogyahay laakiin marka shaqadan isxilqaan lagu jiro runtii anaga ma arkin dareenkaas marna kulli badilka markay qaataan hawsha isku siya u qabtaan isku siya u foojigan yihiin dhidid ka dhacaya shaqada ay qabanayaan si ugu faraxsan yihiin heesta u dhacaysa maxaa jira annaga laftirkaan waxaan samaynaa heesihii wacyigelintan waa ku dul qaadnaa marka taas laftirkeeda waxay siinaysaa inay si fiican xaasidoo xoogga baan iyo heesihii ay qaadi jirtay fanaanadeeni weyneedo heesta ii sheeg ay qaadi jirtay مثلا dadweynahaan hanuuninaa haasaawinaa danta u hagnaa oo koobaysa wax walba taasoo kale ayaa waxaa waaye hibanuura heesahaasoo kaleeto ayaa loo qaadaa shaqaalaha ayaguna marka waxay u baahan yihiin marka gogaabadaas in la geliyo shaqadaas laakiin runtii waxaan ka baran karnaa inaan wax qabsan karno waxaan u sheegaa marka shaqaalaha soomaaliyeedna daawanaya caawa xooggiina waan aragnay wadariyadiinana waan aragnay dadnimadiinana waa la arkay waxaana idin daawanaya dhammaan dadka soomaaliyeed meel kasta adduunya joogaan waxaa idin dhiman inaa xataa xoolihiina aad gelisaan wax ka dhiman oo kale ma jiro marka insha allahu goobihii lagu dhisay iskax u qabso waagii hore maantana isxilqaan inaan ku dhisno oon dalkeena aan hormarin oo wax qabanno oo bulshada loogu adeego wax weyn waayo oo qiimo ku fadhiya inta taqaanaa taqaana anigu runtii anoo ardayhan ka shaqay jira waxaan si fiican u aqaana marka maxaa rabaa ma la kulantay inta halkaan joogtay abwaan ama fanaanad ama mulaxamiiste ama musician halkaan waaye badan kasoo qaada tiyaatarka ama dad badan wacyigelinaha oo goobta kula kulantay oo bal markaa kula kulantay waxyaaba badan oo kaga sheekey maxaa waa la kulmaa si wax walbaan la kulmaa weliba waxaa hadda nagu soo biiray kuwa dibadda ka imaanaya oo dhahaayo waxaan u nimid tiyaatarka la dhisaa markaan maqalay oo iska waayeeloba laakiin hadda weli xooggii iyo aqligii ku jiro waddankeena waddan fiican uu ahaa ilmihii kusoo koray dowladda dhexe anba kamid ahaay iskaa wax u qabsaan soo maray iskuulkii ani aan ka baxay dugsiga dhexe ahaa qasabaa lagu dhisay isxilqaan iskaa wax u qabsa iyo qasab waa soo jooga qasab waxaa la oran jiray iskuul dadka qasab ay ku dhistaan degme hebel maali hebley imaanaya qasab qofka imaan waayo waa la ganaaxa taasaan soo joogay ayadana ii sheeg aan kaga baxay iskuul waana la oran jiro magaalada kismaayo ku yiilay waxaan aragnay fanaaniin badan oo abwaano oo waaweyn oo noo imaanayo oo dhahayaan noo dhis marka waxaan annaga waa dhiseynaa weliba inaad dadka wacyigelisiin oo dowladnimada dadkii haddana ay kusoo noqdaan oo dhalinyaradii 27 sano kadib dhalatay la baro dowlad iyo waxay tahay talagalkeena waa intaas masraxu 1700 ku dhawaada 1500 1600 meelahaas lagu qeys inuu qaado inkastoo kuraasti laga fofuqsoo kuraas loo dalbay marka 1700 waa tusaale tiyaatarkii qarankaa la furay ee waxaa usii baahanahay tiyaataro kale waaweyn maxaa yeelay 3 milyan ama muqdisho ku noolahaa waxaa rabaa fanaaniintaasi aad la kulantay bal heesihii iyo masraxiyadii halkaas ay kusoo bandhigi jireen qaarkood ma kaaga sheekeeyeen iyo maanta sida dadka soomaaliyeed way iga sheekeeyeen gabar tusbax dheer wadato aan kuukuya qabi jirtay aniga agaasimo ismaaciil maantadaa noo timi oo oynays way oynay haddii ilina ka dareeris wixii ma noqonayaa ilmadheelay wixii manamagelaynaa masraxa mayay tir tusbaxaan wataan laakiin waxaan rabaa tiyaatarka inaad dhistiin waa wax ku jiro qalbiga waxaan ugu soo kordhagay oo daraad noo yimid abwaanka weyn salaad maxamed shardi oo maraykan ka yimid oo weyn maanta ilaaha weyne oo abwaanadu soo dhaweeyeen oo ilaa airboortka ilaa iyo tiyaatarka gawaarida isku xirneed oo toos annaga noogu soo dhaco ilaa tiyaatarka la dhisaayan arkamahe ma tagaayir oo noo sheegay wixii uu ku gobaabi jira askarta dhigi maayo tuutaha inta uu dhinaceega waxaasoo heesihiisa qiirada lahaa ee maanta askarta haday maqasho ee tuutaha gashanaya qoriga qaadanaya uu noo sheegay waxaa kaloo noo yimaada mar walba oo naga tegin abwaanka maareeyaha ka ah abwaan guure abwaano badana noo imaado oo nala shaqeeyo oo hiidii hoo la taagan maxaa la kulantay ani waxaan la kulmay waxyaaba igu yaabka badnaa
shaqaale jadwalka aan ku jirno soo shaqo tega oo le aan galo iyo maalintaada sugo iyo magelaysid waa gelay waxyaabo dhib badan oo masahlan laakiin caqabad ma aha waa wax fiican xiisa waayo dad qaba waxaa kaloo jiro runtii dad oo iska baray badan way jiraan oo dadkii hore ah oo dawladda hore u shaqaynayay militariga oo ayagana sidoo kaleeto rabaan shaqada iska soo galaan annaga marka waxaan aad uga fikirnaa inta badan markaan meesha joogno goobtaas amniga ayaan aad uga fikirnaa runtii amniguna waa fiican yahay meesha ciidana joogo xoogan laakiin qof aan shaqada ku qornayn ama idikaar aan kusoo gelin meesha ama jadwalka noogu jirin markuu noo yimaado waxay nagu noqonaysaa inaan baaritaan adag lagu sameeyo waxaas oo kale ugu dambeyntii shaqaalaha dawladda maxaa faraysaa oo daawadayaasha ujeedinaysa waxaan farayaa ma faraayo waxaan idiin sheegayaan leeyahay oon idinkula talinaya waad wadaan hawshiileeda kugu talagalay waad ka jawaabteen dikreetadii ama baaqii ra-iisul wasaare khayre iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya runtii waxaa la rabaa waa intaasoo loola dhawaado wax la yidhaha sheekadayna ha jirto waa intaasoo lasii kordhiyo xoogga iyo awoodda xoolana layska soo gooyo oo maxaan ku idhahday lagu kabo meeshaas si looga shaqeeyo ugu dambeyntii maxaa xigo markaa tiyaatarka ka baxdaan tiyaatarka hadda shaqeynaysaa waa noo soo kooban tiyaatarka shaqadiisa meel fiican ay maraysaa dhismihiisana aada u bilaabmay wixii qashin dhex yiidana 2 beri 3 beri hadda kadib haddii la guro waa qashin dambe kuma haraayo dhismihii weynaayo shubka iyo dadkii iyaa la gelayaa insha allah meel fiican u maraa waxaan rabaa gunaanadkii inaan u mahad celiyo wasaarado dhowr iyo hay-ado dhowr oo aada iila shaqeeyo aada u mahadsan waxaa kamida wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo shaqada wax ku leh walaalkii ismaaciil oo subax walbo iiga soo hormara meesha salaad subax markuu soo taagana u imaado iyo bahdiisa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasiirkooda kormeer aan mar walbana soo kormeero agaasimo cadde oo isagana aada noola soo xiriiro xogheeyahooda oo isagana aada noo soo kormeero kulligood way mahadsan yihiin wasaaraddaas waxaan kaloo mahadnaq u jeedinaya wasaaradda warfaafinta oo aada noola shaqeyso subax walba noo soo dirta wariye iyo cameraman qayb kaloo noogu dhimana insha allah aan ka sugayno process noo socdo oo la rabo dadka inay nala wacyigeliso oo tiraahda bakanaa kamida iyo kuwo kalena waan rabnaa oo ka badan waa ugu fadhinaa wasaaradda waxaa nala shaqeeyo gobolka banaadir gobolka banaadir oo aada iyo aada aan u mahad celinayno guddoomiyaha ku-xigeenka guddoomiyaha arrimaha bulshada kulligood aada noola shaqeeyo na soo kormeero wixii qalab aan u baahano hadduu yahay qalab nadaafad hadduu yahay gawaaridii raraysa gudaafadda hadday yihiin isheeg gaarigan wacyigelinta ee subax walba meesha ka heesaayo waxa soo dhiibo waa gobolka banaadir wayna mahadsan yihiin sida furfurnaanta leh ee wadaninimada leh ay noola shaqeeyaan waana gobolkoodii waana gobolkeeni waana gobol aan wada leenahay waxaa kaloo noola shaqeeya maamo wasaaradda maaliyadda aada ayadan u mahad celina wasiirkeeda oo guddiga guddoomiye ka ah haddana kormeerkiisu joogta yahay jaamacadda ummadda sidoo kale iyo bulshada soomaaliyeed oo dhan oo arrintaas ka qayb gasho niyada ka jecel qalbiga ka jecel dal iyo dibad meeshay joogaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin wasaaradda warfaafintan way kasoo jawaabi doontaa